السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah musharaxiinta garabka mucaaradka ee Puntland oo hubaruurti ka bilaabay Garowe kadib markii uu Siciid Dani qortay 17 xildhibaan oo aan la isla ogeyn oo ka soo galaya deegaanada SSC ganafkana ku dhuftay go'aankii simada dhaqanka Puntland ee ahaa in 49 mudane lagu galo doorashada Puntland ee soo aadan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo lagu eedeeyay inuu gacantiisa ku burburiyay Somaliland kadib heshiiskii Djibouti iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo dejisay qorshe cusub oo lagu sugayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka warbaahinta xiddigta Banaadir oo diyaar garooba ayagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta Banaadir Star Media oo dhameystiran fadlan daawada markasta xusuusno xuska iyo xiriirka leh oo tuko salaada haddii aad doonayso inay mar walba ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada warbaahinta xiddigta Banaadir fadlan rukumo oo subscribe saaro channelkan lana wadaaga asxaabtaada mahadsanid aan ku bilaabay xiisad dagaal ayaa ka aloosan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halka oo hubaruursi ay ka bilaabeen garabka musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya kursiga madaxweynaha Puntland kuwaasi oo diidan qorshaha ay wadaan Siciid Dani iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee Dani taabacsan kuwaasi oo qoray liiska 17 xubnood oo aan la isla ogeyn oo ka imaanaya deegaanada SSC oo Dani taabacsan kuwa oo ka qayb galaya doorashada soo socota ee Puntland waxa ay musharaxiinta mucaaradku Garowe iyo hareeraheeda soo dhoobeen ciidamo cusub iyagoo isku diyaarinaya inay dagaal la galaan Siciid Dani haddii uu ku adkaysto in doorashada lagu galo 66 mudane waxayna ku doodayaan in doorashadu ay noqoto mid lagu galo 49 mudane oo la aqbalo go'aankii garaadada dhaqanka ee beelaha SSC qaatum ee ahaa inay ka baxeen Puntland sidaa darteedna 17 xildhibaan ee deegaan ahaan ka imaanayay SSC aan kalkan doorashada lagu galin oo beelaha Puntland ay ka wada tashtaan doorashada kadib sida lagu buuxin karo 17 kaasi kursi ciidanka danab la magac baxay ee Puntland ka howlgala ee mucaaradka taabacsan ayaa soo buux dhaafiyay hareeraha magaalada Garowe waxayna sidoo kale dhufayse ka sameysteen gudaha caasimadda madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si cad isaga diiday go'aankii simada dhaqanka ee Puntland isaga oo Siciid Dani ku dooday in doorashada Puntland ay ku dhici doonto qaabkii hore oo lagu gali doono 66 mudane madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa ka hor yimid bayaankii ka soo baxay simada dhaqanka ee Puntland ee lagu go'aamiyay in doorashada lagu galo 49 xildhibaan madaxweyne Dani oo kulan degdeg la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland ayaa ku amray inaysan dheg jalaq u siin go'aanka isimada oo uu ku tilmaamay mid dastuurka baalmarsan warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Siciid Cabdilaahi Dani uu guddiga u sheegay inaysan jirin wax isbedela oo lagu sameyn doono shakhsiyaadka wata magaca beelaha SSC qaatuma ee uu suuqa ka qortay si uu doorashada ugu galo guud ahaan liiska 66 xildhibaan oo ay ku jiraan shakhsiyaadka reer SSC ee suuqa laga soo qortay ayaa dhamaystirmay shalay waxaana lagu wadaa in si rasmi ah loo shaaciyo dhawaan iyadoo aan wax heshiisa laga gaarin xiisada ka taagan Garowe dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka Puntland ayaa dhexdooda ku muransan fulinta amarkii uu siiyay Siciid Cabdilaahi Dani ee ahaa inaysan dheg jalaq u siin go'aankii simada dhaqanka ee Puntland guddiga oo dood ka yeeshay sida laga yeelayo awaamiirta Siciid Dani ayaa aad u kala qaybsamay waxaana laga filan karaa inay laba garab u kala jabaan haddii khilaafkoodu uu sii socdo Siciid Dani oo dadaalkii ugu dambeeyay ugu jira inuu ku soo laabto markii labaad kursiga madaxtinimada Puntland ee uu hadda ku fadhiyo ayaa wada kasta u maraya in uu xafiiska sii joogo wuxuuna ololihiisa ugu weyn ciwaan uga dhigay dagaal siyaasadeed uu kula jiro Xasan Sheikh iyo dawladda federaalka wuxuu ku dooday inuu yahay ninka kaliya ee u taagan difaaca Puntland ee ka ilaalinaya faragelin kaga timaada Muqdisho musharaxiinta ka soo horjeedana wuxuu ku tilmaamay kuwa uu ku adeeganayo Xasan Sheikh oo doonaya inay Puntland u gacan galiyaan dawladda federaalka ismada dhaqanka Puntland ayaa xoogoodu isku raacay in doorashada soo socota ee Puntland ee madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka lagu galo 49 xildhibaan oo aan la soo xulin 17 xubnood ee beesha dhulbahante ay ku lahayd baarlamaanka Puntland go'aankaasi oo ay mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale ee Puntland ay yideen balse Dani uu diiday madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa dhankiisa go'aanka ismada dhaqanka ay yiday wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in doorashada lagu galo 49 mudane
axmed karaash madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu sheegay markii uu arkay xaalada amni iyo tan siyaasadeed ee puntland ay ku sugan tahay uuna tixgeliyey go-aankii kasoo baxay golaha dhaqanka ee SSC qaatuma 23 Diseembar baaqii dalada musharaxiinta puntland 27 Diseembar iyo go-aankii isimada puntland 29 Diseembar inuu si buuxda u soo dhaweynayo in doorashada lagu galo 49 mudane iyadoo oo la xaq dhowrayo go-aankii masiiriga ahaa ee bulshada deegaanada SSC wuxuu sheegay inaan marnaba la aqbali doonin 17 xildhibaan oo aan haysan matalaada bulshada deegaanada SSC sifa kasta oo ay ku yimaadaan wuxuu ka digay tallaabo kasta oo keeni karta xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhacda Garowe xilli ay mucaaradka iyo dani qarka u saaran yihiin inay mar kale dagaalamaan xiisada Garowe ayaa markan salka ku haysa 17 xubnood ee beesha dhulbahanta ay ku lahayd baarlamaanka Puntland ee ay la laabatay oo uu dani doonayo in si magac u yaala loo soo qoro dhinacyada kale ee ismada dhaqanka iyo mucaaradkuna ay ku doodayaan in dib loo dhigo 17kaasi xubnood oo doorashada lagu galo 49 mudane hardanka siyaasadeed ee Garowe iyo suuqa kala iibsiga xubnaha soo baxay ayaa sidoo kale sii xoogaysanaya waxaana musharaxiintu ay dhaqaale dheeraad ah ku bixinayaan in ay hantaan quluubta xubnaha cusub ee baarlamaanka lixaad ee Puntland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu eedeeyay inuu doonayo in Somaliland aanay ka dambeyn oo ay gacantiisa ku burburto uuna u gacan geliyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib heshiiskii Djibouti ee ku dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wasiir hore Cadaani ayaa ku eedeeyay Muuse Biixi in uu gacantiisa ku burburinayo Somaliland oo uu toos ugu gacan galiyay ama u hoosgeeyay Muqdisho si weyn ayaa la isu weydiinayaa wali qodobada sababay isbedelka Somaliland ay ku aqbashay in ay heshiis toos la gasho dowladda federaalka Soomaaliya markii ugu horeysay qodobadii ka soo baxay shirkii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee Djibouti ayaa u muuqda kuwa wax badan kaga duwan wada hadaladii hore ee labada dhinac maxamed mukhtaar ibraahim oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in kulankan ay gaar ahaan yeesheen labada dhinac uu wax badan kaga duwan yahay kuwii hore marka la fiiriyo xilliga uu ku aaday warmurtiyeedka ka soo baxay shirka sida loo qoray iyo qodobada lagu heshiiyay wuxuu tilmaamay in warmurtiyeedka ka soo baxay shirka labada qodob ee ugu horeeya ay sheegayaan in laga wada hadlay arrimaha masiiriga ah halka kulamadii hore kalsooni dhisida oo kale ah laga wada hadli jiray oo aan gudaha loo gali jirin arrimaha masiiriga ah wuxuu sheegay in isbedelka ka jira caalamka sida arinta badda cas iyo dagaalka Gaza iyo gantaalada kooxaha xutiyiinta ay sidoo kale yihiin waxa wada hadalkan sii xoojinaya ama soo dadejinaya inay labada dhinac isfahmaan maxamed wuxuu sheegay in Somaliland markii ugu horeysay ay aqbashay in warmurtiyeedka lagu qoro ereyga gobolada waqooyi in wasiirada arrimaha gudaha labada dhinac ay hogaamiyaan oo ay saxiixaan heshiiska ayuu sheegay inay tahay arrin kale taasi oo muujinaysa in labada dhinac ay fahmeen in arintu ay tahay mid gudaha ah oo aan dibadda loo raadinayn wuxuu rajo ka muujiyay in wada hadalladu ay miro dhali doonaan marka la eego xaaladda iyo duruufaha uu tilmaamay in ay ka jiraan gudaha wada hadalka iyo heshiiska cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa u muuqda mid abuuraya rajo cusub iyo didiilo muujinaysa inay dib u midoobi karaan mar kale Muqdisho iyo Hargeysa hase yeeshee siyaasiyiinta gudaha Somaliland waxay ku eedeynayaan madaxweyne Biixi inuu gacantiisa ku burburinayo Somaliland iyagoo tusaale u soo qaatay dagaalkii ka dhacay gobolka Sool ee taliska Go'jacde looga qabsaday Somaliland iyo heshiiskii ka dhacay Djibouti oo ay ku tilmaameen Go'jacdihii labaad oo uu Muuse Biixi soo faarujiyay waxay sheegeen in Muuse uu ka shaqeynayo sidii Somaliland loo hoosgeyn lahaa Muqdisho horeyna uu soo faarujiyay gobolka Sool oo Somaliland ay ka soo baxday balse xogaha hoose ee laga helay heshiiskan waxay tibaaxayaan in Muuse Biixi Cabdi uu dalbaday in loo wada hadlo koonfur iyo waqooyi oo Somaliland ay wada hadallada ku matali karto xataa deegaanada SSC ee horey looga soo saaray oo laascaana ay ku jirto waxaana muuqata in Somaliland yoolkeeda ugu weyn uu ahaa in gobolada waqooyi ee uu guumeystay Ingiriisku ay si buuxda u wada matasho oo ay wada hadlaan koonfur iyo waqooyi arintaasi oo ay guul siyaasadeed u aragtay Hargeysa
halka ay dowladda federaalku dhankeeda guul u aragto in somalilan ay kasoo dabacday halkii hore aqbashayna in warmurtiyeed ay labada dhinac wadajir usoo saareen lagu qoro gobolada waqooyi, taasi oo meesha ka saaraysa qorshihii gooniisataaga somalilan iyo damaceedii ahaa inay noqoto dal ka madax bannaan Soomaaliya. magaalada muqdishona dowladda federaalka ayaa diyaarisay qorshe cusub oo lagu xaqiijinayo amniga caasimada kadib amaro kasoo baxay xukuumadda. wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa gudoomiyay shirka hay-adaha amniga oo lagu qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. shirka waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Sulub Axmed Firin, gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir, taliyaasha qaybta guud ee booliiska iyo nabad sugidda, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, taliyaasha guutooyinka ciidanka booliis militare, taliyaasha qaybaha iyo saldhigyada caasimada ee booliska iyo nabad sugidda. ujeedka kulanka ayaa ahaa in wax la iska weydiiyo xaaladaha ammaan ee caasimada sanadka dhammaaday ee 2023 iyo sanadka bilowga ah ee 2024 sida amniga caasimada loo sugayo qorshe cadna looga yeelanayo. sidoo kale waxaa saraakiisha laga dhageystay caqabadihii iyo casharadii laga bartay sanadkan iyo sidii loo hagaajin lahaa amniga guud ee dalka gaar ahaan kan caasimada. waxaa la bogaadiyey dadaalka saraakiisha iyo maamulka ee isbedelka ammaan ee wanaagsan u horseeday caasimada, waxaana ay dhammaan xubnahan isku raaceen in laga shaqeeyo xaqiijinta amniga caasimada. dhankiisa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay kulan amniga caasimada looga hadlayay wuxuu sheegay in ammaanka caasimadu uu soo hagaagay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay. wuxuuse ra-iisul wasaaruhu sheegay in uusan meesha ka bixin eray uu horay bulshada ula wadaagay, balse loo arkay mid maad ah oo ahaa in qofkii qof dila uu baxsanayo oo qofna uu dhimanayo midna uu baxsaday. xamse wuxuu sheegay in loo baahan yahay in qofkii qof dila gacanta lagu soo dhigo oo uusan baxsan inta uu qof wax dilay ama gacan ku dhiig la baxsanayana uusan amnigu sugnayn. caasimada Soomaaliya ee Muqdisho isbedel dhanka ammaanka ah ayaa laga dareemayaa kadib howlgallada ciidanka booliiska ee sida militariga u howlgala. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Banaadir Star Media.